Qarax loo adeegsaday gaari xamuul ah ayaa wax yar kadib salaadii Jimcaha maanta lagu weeraray saldhig ay si ku-meel gaar ah u degan yihiin ciidamada Gorgor oo ku yaala degmada Jowhel ee waqooyiga magaalada Beledweyne. Guddoomiyaha degmada Jowhel, Cabduqaadir Cabdi Cabdulaahi oo la hadlay Juba Media ayaa sheegay in gaariga uu ku qarxay iridda hore ee xerada wuxuuna intaasi ku daray tirakoobka iyo faahfaahinta waxyeellada qaraxa ay dib ka soo sheegi doonaan. Ciidamada maanta qaraxa lagu weeraray ayaa ujeedada loo geeyay deegaankaasi waxay tahay inay qayb ka qaataan gulufka lagu doonayo in Al-shabaab laga saaro deegaano xuduudda u dhow oo bilihii ugu dambeeyay in ay dhaqdhaqaaqyo ka wadeen. Goobta maanta uu qaraxa ka dhacay ayaa ilaa 20 kiiloomitir u jirta xadka Soomaaliya iyo Itoobiya. Maleeshiyaadka ururka Al-shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda qaraxa waxayna sheegtay inay ku beegsatay maleeshiyo loo abaabulay inay la dagaalamaan ururkaasi.